Mrs. Wall ayaa jawaab degdeg ka bixisay sheeko baraha bulshada dhex wareegaysa oo ahaa in dahabkii xafladii soo dhaweynta loogu sameeyay loogu keenay laga qaatay oo laga ceshaday. Soomaalidu waa mixne baraha bulshada sheekadii ugu yaabka badneyd ee saacadihii la soo dhaafay wareegaysay ayay ahayd. laakiin Mrs. Wall ayaa jawaab kulul ka bixisay isla markaana ka hadashay dahabkii loo keenay cidda u keentay iyo cadeymo kale oo ay soo bandhigtay. maxay ahayd sababta ka dambeysay in sida la yiraahdo waayana cidda ku baahisay baraha bulshada in dahabkii Mrs. Wall loogu keenay xafladeeda soo dhaweynta wadanka Mareykanka dib looga ceshaday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ضيال الدنيا ملك استوعد كجوكتان وقتها هذين وعناده كسر دوادة صحاب جنال يا مقال كله مقال كان كني وعو كسر سنة هاي Mrs. Wall أو جواب دك بحسي sheeko baraha bulshada qabsatay saacadii la soo dhaafay taasoo ahayd in dahabkii loogu keenay hadiyada xafladeedii soo dhaweynta wadanka Mareykanka dib looga ceshtay oo dahabka been ahaa. Mrs. Wall inta aysan cadeymaha soo bandhigin waxa ay bixisay jawaabo dadka wararkan faafinayay laakiin bulshada oo ku qanciyay kadib ayaa kaliftay in Mrs. Wall ay si toos ah hadasho isla markaana jawaab ka bixiso waxa baraha bulshada wareegay. intaan u guda galin cadeymaha iyo hadallada Mrs. Wall waxaan rabaa inaan idin soo bandhigo qofkii ugu horeeyay ee ka hadlay dahabkan inuu ahaa dahab been abuur ah oo dib loo ceshtay halka uu ku sugan yahay qofka uu yahay iyo waxa uu yiri balaan wada daawano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قارئ أمريكا ساجوكتان وادن سلام يا جماعة وناكسن وعبد الحكيم عثمان نور سردون كيسسي حرت الشيخة مينيسوتا حالي وحاكا دعي قبل كمينيسوتا حفلة سولوينة ودون كركو اللوغو سميي لأن يرى الصوماليات بيشو دا يسميين ودربي كسو بودي لأن يرى داس وحاكا ميدا هاي قبل Mrs. Wall اللي يرهدو waxaa dhacday in gabadhii dahab la siiyay waxaan rabaa inaan maanta adduunweynaha ka daba geeyo khiyaaliga iyo beenta Soomaalida social media naftooda ay ku maaweeliyaan beentana isku sheegaan wax aad iyo aad looga xishoodo ayaa xalay Minnesota ka dhacay gabadhaas dahabkii la siiyay markii fiidiyoyada la duubayay waxaa laga dhigay in qabiilkeedu ay dahabka siinayaan oo ay soo dhaweynayaan markii la duubay TikTok-kii iyo Snapchat-kii fiidiyoyadii la post gareeyay baraha bulshada la geliyay gabadha dahabkii meesha kala ma dhaqaaqin qof waliba igu sawir bay ahayd dahabkii qof waliba waa la noqday arintaasina waa arin aad iyo aad looga xumaado Soomaalidan sideedaba nolosha ay ku jiraan oo dhan baa nolol feega nolol beena hadda ka hor waxaan ka hadlay xafladii loo dhigay wiilkii Nuur Caraale waxa loo ururiyay doonta loogu duldhigay waxa loo ururiyay lacag $8,000 ah 7,500 waxaa qaatay doontii 500 waxaa lagu cabibiyay waxaas 45 daqiiqo badda ku jirtay waa soo noqotay waa lagu kala tagay marka dhalinyaradan darbiga ka soo booday nolol bay u baahan yihiin yaani diyaarad meeshan kuma imaanin qof kasta xaalkiisa Ilaahay waa ogyahay lacagtaas uu ku soo baxay qof kasta waxa laga yaabaa hooyadii ama aabihiis ama dadkoodii oo ka baahan in la yiri war bal adigu meesha ku gal marka haddii wax loo qabanayo in laga been sheego xitaa ma aha masaakiintan darbiga ka soo booda xalay gabadhaas yar hadda waxa ku dhacay Mrs. Wall waa gabar yar oo iska qalbi fiican oo qof aad u wanaagsan oo aad iyo aad yaani gabar yar iska qalbi fiican weeyaan wallahi aad baan uga naxay markii la igu dhahay dahabkii waa la noqday waxaasna waa waxay yaqaanaan dadka reer Minnesota waana dhaqan u leeyihiin waa waxay yaqaanaan marka ummadda kale ee dibad joogta dalkii waxaan leeyahay waxyaalahan khiyaaliga ah yaan la idinku khaldin arintaas xalay Minnesota ka dhacday ceeb weyn baana dhacay bartii ay taagneyd ayaa lagu la wada noqday dahabkii qof waliba wuxuu yiri igu sawir bay ahayd keen marka waa fool xumo gabadha miskiin oo soo taariibtay inta wax laga duubo in hunguriga inta laga soo rido inta wax lagu sawiro hada la noqdo marka waxaan leeyahay aad baan ugu xumahay Soomaalidana waxaan leeyahay Soomaaliyeey iska dhaafa khiyaaliga iyo nolosha beenta ah ee social media. Salaam alaykum. markii xirta sheekha inta uu yiri Mrs. Wall ayaa degdeg jawaab kaga bixisay iyadoo commentigiisa u gashay isla markaana u qortay fariin u dhaceysay sidan sorry adeer ma laga wici waayay tan kale dahabka agtaada wax weyn miyuu ka yahay ii sheeg anaa dahabku keenayo tan kale dahabkayga hayga cunin sorry
inta ay Mrs Wall u qortay xirta shiiqa oo muuqaalkan ku baahiyay barta uu TikTok ku leeyahay iyo barakale laakiin bulshada kuma aysan qancin qoraalka yar oo waxa ay sii wadwadeen sheekada ku aadan in Mrs Wall dahabkii lagala noqday taasi waxay kaliftay in ay muuqaalo aad u fara badan soo duubto Mrs Wall kuwaasi oo ay kaga jawaabayso in dahabka iyadu haysato cid u keentay afarta tolkee ayaa ii keentay ayay leedahay Mrs Wall dahabkan gurigeeda iyadoo joogto ay sharxaysaa dahabka iyo waxyaabaha la xiriira marka hore dadkan baraha bulshada joogo iskuma haysan dahabka inuu feeg yahay inuu san feeg ahayn laakiin waxay ka hadlayeen waxay ahayd in dahabkii Mrs Wall markii loo dhiibay oo kaamirada laga duubay kadib qof walba dahabkiisa uu dib u laabtay Mrs Wall oo cadeynaysa in dahabka iyadu loo keenay khaasatan reer tolkeeda afarta ay u keeneen ayaa muuqaalo kala joogsi aan lahayn soo duubtay kuwaas oo ay rabtay in bulshada ay ugu cadeyso waxa dhabta ah ee jiro waa kan qaar kamida muuqaalada iyadoo lagu la kaftamayo Mrs dahabka laga qaatay ama dahabka laga cishtay aan wada daawano muuqaalada cadeynta oo ay Mrs Wall soo duubtay Mr dahab laga cishtoy كان أفرتان ذهب هرتا وما سنتين حقيقة يعني قبل ولا لي قالية أفرتو ذا والله بالله أفرتو ذا أفر قبل ذا إكانت والله أنا بيني شيء أفرتو ذا أفر قبل ذا إكانت إلهي خير هسيو أنا أول كذا مكودي كري أفرتو حكينا أفرتها برقدر ما أمنيسين أفرتها برقدر كانت ذهب كان وسعد وسليوان وعير وسرور وسعد وسعد وسليوان وعير وسرور أفرتها برقدر ذهب كانت مع عيار إيه أفرتها برقدر ويا أفرتها برقدر سعد سليوان عير سرور ما عيد أنا الشيء مربي ولا له واي هبريا شيء كو إلى الشيء بيجي أفرتها برقدر أسرح قلبي ذهب كان ذا أبرقدر not easy thank you ولا له يا أبرقدرني لاندير الله وام فان it's not easy نعم كانت كحمل هل قف إنه إيكان لكن أفرق قفا إيكان شيء أنا مجعل إن عددك كهالله يعني هو هبل أنا ما فهمتني هبل على إيش أنت كنت حتى كان حنا كان كان كلا حنا كان أسيبه كان حنا بكسناك لو كنت أفرت أبرقدر وسعد وسليوان وعير وسرور مش ذهب let's see it do you wanna see it yes أنا ما أعود من كل شيء جاي نتوكل أنا تسي شوف إفتين كان يجابنا سوا أركتين أوكي نتوكل وجده هذا أركتين قرقي وإيه ما كرتين من نوع كان عدالتنا وقتنا ما كرتين أم سوق الذهب كان يلقينا سعد سليوان عير سرور ويا نتوكلنا اوكي كان نوعكنا كي اخر نوعكنا واركتين سمعها انت تدور ذاك اخرنا واركتين حفلة الإحراء ماي جاد ذاك لا يكتب من يس فانت انا وافي واركتين سمعها بقواك وعشا انت بقواي صدا بقوا دويا كالي موسوقة اسلا ادينا let's go قفكي قانا ذهبكي قانو إياه برفون كان هدية اللي كاني لتمشوا يو أفر هدايا فري أتقنينا أملينا ديار كان حتى في كواي ما هو إحنا في كواي برفون كان ما أنت مرصدي هاي سيد معك ساعة سعيد رير هلولا رير قاري دلنا هبر كذر أفرت هبر كذر ولا هذا أو عير هو يذا الشيء أو ساعة أنا سليمان هو يذا أنت إزجايا يا أو أيدنا مرحانة أو سرورنا ولا هذا أو ماي جاد أفرت هبر كذر كأنت وساعة وسليمان وعير وسرور معك أفر هبر كذر كله تاعي مركز إلى ترتميسين وجاي ضد الذهب هذا ليس عشتي ضد الذهب
muuqaalada caddeynta Mrs Wall ayaa ugu dambeeyay barnaamijkan mar kale meel kale Maxamed Saciid Saxaaf nabadgelyo